kalluunka dhulka laga qodo sidii macdantii ma malaysan kartid sida dalka Mongolia looga kalluumaysto kalluunkii ayaa dhulka laga qodaa kadibna sida lagula soo baxaa waxa sidii dhulkii noqday waa wabiyadii oo xilliga jilaalka dhagax ah dushoodana lagu lugeeyay qabow awgii marka ay wabiyadu dhagax ay noqdaan oo ay fariistaan waxa loo soo qaataa mishiinna dhulka qoda oo hoos u dalooliya daloolkaasi ayaa malaygii amaba kalluunkii oo nool loogu tagaa markaas ayaa dibadda loo soo tuuraa marmarna shabaagta ayaa godka loogu tuuraa si dibadda loogu soo dhufto iyada oo buuxda mishiin ayaa hareeraha godka lagu banneeyaa maadaama barafkii uu noqday sidii shamiinto shub ah marka kalluunka bannaanka la soo dhigo maalmo iska dhan ayuu halkaasi oolaan karaa ismana beddelo maxaa yeelay dhulka ayaa baraf ah loomana baahna wax tallaagad ah ama qaboojiye si loogu kaydiyo oo hilibka cimrigiisa loo dheereeyo waa marba mid soo jiido oo guriga ku samayso Mongolia dhaqan iyo hiddo ayay muddo dheer u lahayd kalluunka dhagaxa hoostiisa lagala soo baxo si loogu muudo dhaxanta jilaalka wax badan ayaad maqashay macdan qodasho iyo beer qodasho maantana indhahaaga ma ku aragtay kalluun qodasho aad baad u mahadsantihiin Luqaas Media ayaad nagala socotaan